maxadka faafinta islaamka ee ka shaqeeya gobolada iyo degmooyinka dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta magaalada Berbera ku qabtay kulan diineed ballaaran oo ay ka qayb qaadanayeen ardayda wax ka barata dugsiyada sare ee gobolka Saaxil. kulankan oo lagu qabtay xarunta dhalinyarada ee UFNK ee magaalada Berbera ayaa halkaasi waxa khudbad dheer oo diiniga uga soo jeediyay ardaydaasi. isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqafta gobolka Saaxil Sheekh Salebaan Siciid Cali ahna wakiilka maxadkaasi faafinta islaamka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana uu ka warramay isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqafta ahmiyadda ay leedahay iyo sida loogu baahan yahay ku dhaqanka diinta islaamku isagoo ardaydaasina ka wacyigeliyay in ay ka fogaadaan dhaqannada xunxun ee ka baxsan diinta islaamka sida taariibka iyo sidoo kale sinada balwadaha iyo isqarxinta oo uu tilmaamay in diinta islaamka ay yihiin ficilo ka fog loona baahan yahay in la iska ilaaliyo. waxyaabaad kan nafta goynaya waxa kamid ah min amraad alhaalik cudurradii qofka dilaayay ee macaasida iyo khayr darrada ka imanayay isqarxinta oo iyaduna dhalinyarta si yar fudud diin ahaan loogu afduubi karaayo. arrinkaasi wuxuu sababayaa inay cid kale aqraad kale leh si yar uga faa'iidaysato. waxaa kaloo iyaguna halkaasi ka hadlay maamulka ku-xigeenka dugsiga sare ee Bursada Secondary School Jaamac Dheere iyo sidoo kale qaar ka mid ah ardayda oo iyaguna halkaasi isku weydaarsaday doodo ay kaga hadlayeen waxyaabaha diinta islaamku ay ka qabto dhaqannada xunxun ee ka baxsan diinta islaamka. iyagoo halkaasina ka weydiiyay isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqafta gobolka Saaxil. maahana kulankii ugu horeeyay ee maxadka faafinta islaamku uu qabto ardayda wax ka barata dugsiyada sare ee gobolka Saaxil. dhinaca kalena mas'uuliyiin ka tirsan degmada Berbera ayaa maanta ka qayb galay kulan ballaaran oo lagaga hadlayay sidii doorashooyinka afooda ay nagu soo hayeen ee soo socda ay bulshadu ay uga qayb qaadan lahayd indheendheynta iyo sida ay dalka uga dhacayaan kaasi oo ay soo qaban qaabisay dalada ay ku midoobeen ururada aan dawliga ahayn ee Sonsaf ayaa waxa lagu qabtay xarunta dhalinyarada ee UFNK. waxaa sidoo kale iyaguna halkaasi hadal ka soo jeediyay mas'uuliyiin ka socotay dalada Sonsaf oo ay ka mid ahaayeen la taliyaha dimuqraadiyadda Maxamuud Yuusuf Maxamed iyo sidoo kale Jaafar Maxamuud Gaadaweyne oo labadooduba ku dheeraaday sida loogu baahan yahay sidii dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay uga dhici lahayd doorasho xor oo xalaal ah isla markaana ay ka qayb qaataan muwaadiniinta reer Soomaaliland. waxaana ay sheegeen in ay dalada Sonsaf ay ku yeelanayso gobol kasta oo ka tirsan gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland shan xubnood oo iyagu ka shaqeyn doona arrimaha kormeerka iyo indheendheynta iyo weliba sida ay doorashadu uga socoto dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland marka ay qabsoonto haddii ay baydmo. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud